gabadhandan waa mid aad u yaab badan. Si ay isu oysiiso waxay si toos ah ugu dhufatay wejigeeda, laakiin markii ay dareentay intaas aysan ku filnayn waxay isticmaashay basal iyo mustard, kuwaas oo ku filan inay qof kasta isla markiiba oohin ka keenaan. Si kastaba ha ahaatee, saamayntu kuma ekaan gabadha oo keliya, xitaa agaasimaha guud ee shirkadda ayaa bilaabay inuu ilmoodo. Waxay noqotay in gabadhani ay ahayd amiirad ka tirsan qabiilka Badweynta, taasoo si kama ah u badbaadisay nolosha Margot. Laakiin intii ay sidaas samaynaysay, shayga quduuska ah ee qabiilka Badweynta, indhaha badda of Tesea ayaa si qalad ah ugu dambaystay Marsor. Sababtaas awgeed, gabadha waxaa laga eriyey qabiilka Badweynta, waxaana laga saaray badda loona diray dunida aadanaha si ay u raadiso shayga quduuska ah. Iyadoo aan haysan indhaha badda, dhammaan awooddeedii sixirka ma shaqaynayn. Intii ay raadinaysay shayga quduuska ah, waxay gaartay dhismaha Margot, balse ilaalada ayaa u maleeyay inay tuug tahay, waxayna bilaabeen inay eryaan. Markii ay aragtay arrintaas, gabadhu cabsi ayay ku qaylisay iyadoo leh ii caawiya. Isla daqiiqadii xigtay, si mucjiso ah, Margot ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday hortooda. Margot oo yaaban ayaa weydiiyey gabadha sida uu halkaas ugu soo muuqday. Markaas ayay gabadhu u sheegtay runta oo dhan. Isla markiiba uu Margot arkay shaygii quduuska ahaa oo qalbigiisa ka ifaya, aad ayuu ula yaabay. Laakiin ka hor inta uusan waxba oran, ilaalada ayaa dibadda u tuuray gabadha. Gabadhu waxa kaliya ee ay rabtay waxay ahayd inay dib u hesho indhaha badda. Waxay xasuusatay in markii ugu dambaysay ee ay dhibaato gashay oo ay ooyeysay, Margot uu hortooda uga soo muuqday. Taasi waa sababta ay hadda u bilowday inay isku daydo inay nafteeda oysiiso.